الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكود سو دوادا ميل كاستو إذن عالم كفا جوجتان برنامجكي قصooyinka aadamaha qaybtiisii 14aad oo maanta sidoo kale marti igu yahay Maxamed Cabdiraabi Ugaaska idina soo jeedinaya anigoo afkaada Maxamed Axmed Maxamed Cabdiraabi ku soo dhawo barnaamijka qisooyinka aadamaha oo ay daawadayaal fara badan ku xidhan yihiin isla marhaantaana aynu maalinba u gudbino sheeko aynan horay u maqlin oo aad iyo aad u xasaasi ah taas oo taabanaysa meel bulshadana wax tar u leh cibra qaadasho u leh maanta oo ina soo dil istaagnay qaybtii 14aad ina soo dah horta aad u maasan tahay adiga mudan qisooyinku way badnaa 14 qisooyin baa ka sheekeynay wali qayb kala marka hadda waxaan dib istaagayna qaybtii 14aad qaybtii 14aad aad iyo aad marka waxaan jeclaan lahaa markii qisadii inaan soo yarkaabino inay dheer tahay qisadan wuxuu ka sheekeynaysaa gabar Soomaaliyeed oo aan muddo hadda week laga joogo aan wada sheekaysanay oo ka caawinayso ragga Soomaaliyeed ragga ka caawinaysa waana gabadh ko marka waxay Soomaalida igu dhalinayaan dhahday ilaa iyo waxaan soo guursaday 8 nin baan soo guursaday ko marka dadku waxay dhahayaan marka gabadhan iyada xun waayo 8 nin maxaa waa karaan wadariye waaxid baa qaldan marka waxay igu dhalinayaan marka in anigu xumahay oo xumaan bay igu حقيسة يوفيرين. أنا ندي قف وما تدا وشاك سدني مع صفري. بس النيدي سو حق ليسو. سدني سو حق عررين بي. ويخواني بلنا كشيت أنا ما كسي عررت. هاي. والنيد في عيوم صقلاء. هاي. مركب قصيدة كواد بيجي شاك إذا قصيدة إلى ماسترين. هاي. وحاجة شاك أنا أفريتو من جرة. ومركز يجوين أفر قبلود. والمجر نمكاس يجي يراين. وهو يدي أبي قراف لهذا القلاي. كو. مزاج مكو مع ماذا تكتي. مزيج مركو معمد رجعت كتير مزيج ونهاي ويا أبي عدو وهاي واي هاي مركا أصلي وسكتي مركا هاي مركا مكود تجي المية مركا أنا مركا عدان وففر عناي وهوش قبنا يكون قبلي وين هاي عدي أسوق قبتي مامي عدي مركا درس جيان بعونتو وسوق هذا المية عنت أنا سي مركا هاي عدي أنا قعدت كوهاي هاي مركا سيدا وهاي باويل أو قراودة أنا ما نصاب بقول مركا هاي عود مزيج معمد ويلي قلت جاني ما حد يقول حد يجري المين حدنا هاي قاعد جوا حين وحكى مع استيد هذا هاي مركا العقو نسيي مركا راشين سوق طولا مركا هاي راشين كأنا وسوق دقيقة عد راشين كاو دقيقة عد سيد كنا لاين باويل كحولي ماذا إنه يقرص هذا مركز يو دماعي قال دماع بعقله وأنا قرصنه عدنا سان قعدت عم كحينه قول أنا قيم كدقة مركا markii maamada iyo duqo ay kala tageen ciyaalku mid ahaan mar raacin miyaa iyaguna meel gaar ah ilmaha dhan meesha duqina meel buu dhaqaaqay maamada meel buu dhaqaaqay kor maamada dhaqaaqay de musiiga isbuuc buu ka dambeeyay oo iska tagay oo iska tagay hay daa xusuuleed maamada ka way soo noqon doontaa maadaama aad tagtay hay wax soo noqdo ilmaha soo noqdo malaha marka gabadheeda marka gacanta inay qabsatay ilmihii bay wax u qabatay hay eedida marka ku dhigay cunto uu soo qaaday maadaama cunto cidi ay dhamaatay hay wiilka marka uu saacaday wuxuu dhahay marka qaraabana way hayeen wuxuu dhahay bal maamadii iyo cid maadaama museega tageen bal maxaa dhib jiro waxay ku caawiyeen marka inay gaaji jirto hay lacag uu si soo adeegto dhahay marka hay gabadhii uu soo adeegto marka hay adi abaar buu ka maqnaa uu soo noqday marka hay wuxuu dhahay dan ka waran sida nolosha ku nooshay hay wixii aan siisay wili iska yareysana hay gabadhii uu geeso baxay marka hay wuxuu dhahay maadaama ay labadii waalidey soo noqon lahayn maanan cid ka soo qayb noqdo oo nadigo ku guursado hay marka gabadhu marka guur way gaadhay adii 14 jir waa markaas hay guur way gaartay wixii xada marka hay'adaha way ogolaatay iyadoo markaas leedahay walaaladaada diiba ku dhargaayaan inta lagu siinayo oo baahida banaanka ay u bixin hay iska dheh hay way ogolaatay marka hay markii ogolaatay maama eedidii oo tagtay marka uu ku dhigneed ee u sheegtay arintii maamadii waxay dhahday ninka waa tuub adoo ku dhici rabaa ko maamadii waxay wacay marka walaalkeed hay museega dib u soo noqdo marka duqi hay wuxuu dhahay ninkii aawi hay warintaas kula imaad oo hebel waa taqaanaa hay markii dambe waa loo wacay marka guriga loogu yeeray hay guriga waxa rabaa sabartu mi Allah marka adii ciidan khalaas ka dhax faa'iideysan rabtay hay ma yeedid maadaama ay joogin ciidan waan ka naxay dad tolma waan naxay saas darteed gabadh u jeclaaday sax wax qabadkeeda iyo afar gabdhood ka weeyeen bay gacanta ku haysaa wili ay gabadha lagu daro hay musiigu wuxuu dhahay marka wada hadlay markii wiilkii way isku afkartay marka hay
maamadii arrinta maqashay soo noqotayna oo dhahday gabadheedu way yar tahay qofna looma darayo in loo xoog badan baa leeyahay musaygu wuxuu dhahay awal Soomaaliga hadan ilada ka bax gabadha aan dhalay anana meel maareynay wiilkii lagu daray markay wiilku waa military waa ciidan marka fasxu haysta marka ilaa dhowr bilood mas guriga oo ka qayb noqday marka cidii oo reerkii oo guriga tagay qolka tagay si gabadh markii lagu daray fasax yaa u dhamaad marka maamadii dib u soo noqotay marka soo markaas xalqooda musayga dhaxdooda galay oo maamadii dib loo soo celiyay oo wuxuu gabadhii waa laga dhex bixinaya xiriiradii isaga noqonaa military-nimada gabadhii waa wadanaya sidoo gabadhii ku watay marka waxay dhahday guriga markaan joogay nolol raaxan ku noolahay xirada military makaan tagay ciidanka ka mid noqotay dib markaas oo bilaaday dhahday بس وان يرحم وصدي هذا وحنا حسوس تايد وانا يرحم وصدي با امر لانتي سان حري ملتري كسو بخاي هاي ستاران سو راسد markaas waxaan dareemayna walaac ahay marka istaalkii imaaday ba doctorku wuxuu dhahay walaac ma tahay dhiiga hoos ayuu si dhacaya marka waxa ku fiican u dhahay inaad daawooyin oo ku soo qornay isticmaasho fruits kala isticmaasho doctorka amrikiisa talida soo qaatay xaafadda dib u soo noqday waxaa ku dhahay ninkii guriga joogo markaas oo iga soo hormaray intii aad u dhaamay ambarlaantiidu waxay dhahay waan xanuunsaday dhaaday doctorka istaal u tagay doctorka saar uu soo qoray uu soo waday doctorkii uu leeyahay u dhahay wuxuu dhahay gabadha maxaa ku sheegtay u dhahay in xanuunsato ama sheego yiri waa doctor markaas ajnabi asna ahay doctorkii uu canaantay wuxuu dhahay waan ku xig hadaa mar dambe xaaskii ay ku imaato aad daaweyso uu soo waday waxaan ku qabsadaa maxaan sameeyo oo amar laantaada aan sameeynin oo aan bixitaankan caafimaadkayga ka darnaa markaas ama amarkan wuu ku soo horjeestay marka wuxuu dhahay ma bixi kartid xeedaa laguma ogolo marka military waxay leedahay marka judgment yar ay leedahay meesha oo xafiis oo iskala ninkii uu sheegay wuxuu dhahay xaaskaydu bixis aragtid aan adeegan keen meeshaan ka adeeganayso adaa u maqan markaas waxaa umaleeyaa ninka saddexaad uu ahaa xeerada ninka amarkii u qaaday marka gabar walaasheedu markaas aniga cidaan u yeelay ay soo booqatay maalin gurigii aan qayb ka dajiyay gabadhii marka waxay dhahday marka waan baxayaa safarkan dib cid ugu noqonaya wala dhaweysaa marka boostada geesa walaasheedu oo macsalama asisa oo meesha uu soo noqota asaa marka xatii lacagtii diiwada gabadha waa dhaweyn dhalay lacagtan gabadha si saasa ku baxdo dii maadaama ay noqonayso أنا حاسس دابل ما دام والعقل كسي مزيجادو بل قبل عشان نصير على بوستاجي السيطة بوستاجي نتاعي قبل نصير كل يوم وين صير ده مركز وفي مجال إن بدن كم مقنعي نصاب بحين مجال تو بل صير واسق وحيسو قبل كلام مش بكون كوير ولا كده تاني أنا كلام العقل متسكيسو يبسدي دي بقى وصلنا نقدر نقول يومك وحاطنا لك كل مرة المزيج أو السنة فديو قلكي مركز قريين guriga abaheed fadhaamisay gurigeeda iyo guriga xaafadoodii militariga dib u soo noqotay xeradii waa tii baxday walaasheeda markii soo noqotay uu qabtay marka wuxuu dhahay waa markii labaad amar laantii baxday meeshuu marka dhaawac uu gaarsiiyay dhaaday marka uu jirtilay markuu iqraacay waan yar xanuunsaday waxaan u orday dhaaday marka nafteedana la cabsaday inuu soo dilaan ka cabsaday baa waxaan u gaadhay marka nin xerada diris walaha marka militariga sanahay بس إنك يا مركز صوب حيو قيل يا سي مركز لو هذا الناس فيرين هذا مركز وملتري زلاعي هذا ما خبط حاسكم أنا أخو صوب حبران حتى إنه في المرات يقول قراعة سي أقول كرتا قوليان أنا أقول صوب كرتا وأنا أقول قراعة حين هذا واحد نص هذا نسحب بيدرس هذا ولا عبان حي وإيش خبص هذا المركز أنا لو هذا هو قراعة وليوات كيسوس مركز صح مركز تلفون يرى هستي توصل مزيج به كواعد هذا وأشجع أنتي مزيجا ماشي وما ولا هي قام وضعنا قبل ما دام ساول لقنتي تركيد إنه أوعى بك موضوع بس الحين بتري وصوك شيء سواه أو بحين ده ماشي جو ماشي تستور إلا ده اليوم بقول سوا تاني كحقق في مركب هذا يريد يدور أمر الآن جودة من بحكرة الله ينكاس وصو أمره وهذا قفت تستحق الرجل أسامك نكاس تحدوا إنك وصو مركز مزيج إنه لبيه كريم قبليسو دي وصو نقول كده هذا نوع هذا أمر تميل هذا يريد يجعلسو أنا قبلي دوّرت ما يوجري ماشان شرعي لا هاي ملا قبل هذا نبيه كرتيد أنا أخبو أنا ماشان كاب بحنا هاي إسكت جو قادني ويرد تجي مركز
markuu museegi gabadhi dejiyay wiilka dejiyay museegi sadegiisa way isku qanceen marka museegi wuxuu dhahay marka waan qaltamay wuxuu u sheegtay marka constitution kaasi ka dhaxaysay oo xaaskiisa uu ku dilay wuxuu dhahay marka hayi waa isku afgartay marka museegi inay gabadhi u joogto sidii uu iga soo tagay oo iyada sheekeynay suuxda sidoo aabay iga soo tagay dhahday iga soo tagay waan dareensanay dhahday in dib kale ka dambeeyay aysan waxa dhacday marka inkii wuxuu dhahay marka waa guureysa marka Nairobi kamid ah constitution Nairobi ka qayb ka dejinay meeshan aan dhibsatay waan ka guuray waan ka raray walaal wuu soo waday dhahday wuxuu dhax keenay meel aan Soomaaliya garnayn oo adoon kaliya degto wuxuu meeshan ay joogaysaa meeshan ku noolaa soo meeshii maanta oo dhibku badneed xaalada lagu ku dhibay inta joogay daarad ka warwareeg fasax leedahay meesha arta galo dhahay meel aan Soomaali joogay oo meel aan Soomaali degnin oo meesha xirad ciidanka marka Soomaaliya ku dhaweyd Soomaali xay wadi wadi na Soomaali kuma Soomaali in ku dhigana Soomaali ee markaas xirad Soomaaliya ku weerarsan faaqo bas meesha ugu soo tagaa marka meesha uu keenaya marka matuula mise waa isla xirad ciidan waa tuuli yar markaas oo adoon yar kala deg guur la markaas waxay dhahay marka markuu iga soo tagay ugu dambeysay dib ugu soo noqon telefoonkan ka soo waca wuxuu dhahaa aniga shaqaan ku jiraa ana imaanayo wax kale uma dhaho meeshaan ku rafaaday lacag buu MPS ay ku soo diraaday oo markaas oo ka u soo geliya wixii biilkeedu waa xanuunsanayaa adoonta ka u tago waxay dhaheen adoonta waa taqaanaa dib dad saa isku saaciiday maaha marmarna ku maadmaan wada beerayska aadaan dad nin walba dantiisa wax isfiirnaa ma laha aadiya habeenkii maqribkii aan adoon maar ay imaaday وأجنبي أحد وحيدا مركا معلومات هذا اللي سان وجد محنوسان تحت وحنوسان هذا هذا سيد نو ومصير سنة هاي جارينا إيرادسي أي جيس مقالة هذا هاي بالستال يو أنكر أسد واحد مركز أنا أسكت دبيبه هاي هيودا مركا جاري وكان مركا وصوب وضي وحكي مركا ماشي كلنا مقالة نين كان ولا صعد مركا جودي حاسكيس إنه صوب وضي ولا صوت شيء يا صوت شيء دادي جيرانka u sheegay dariska in baa wata lahay oo qaanin oo hebel lahay ilaa iyo magaalada soo socdeen kullu way inay xanuunsan tahay xaaskada maleynayna isla markii gaari ku soo daba qaatay ninkii uu xiray wuxuu dhahay sharciga xaaskii soo waday aan ka rabaa way xanuunsan tahay hadi ma qabto aniga soo dad muslimaan ahnay dhaqankeen ma taqaana oo mayo maxaa ku daba dhigay xaaskii mar بس نكى دو شرع الله يعني ولا حاجة مرة دريس بالوف قولي ده صار جفتوك ستة سنين مش وقتك بس مركو مش وقتك قبل أبهد أو عمر ولا قبل ده ضد بعد تحت الجي والجنبية أنا حس ده هي دخن كي أو يكون رئيسا لكن كي دخن فانتو أتوم بقبل هذا النقطة لقام خلق قرنا عيد marka gabadhaadu starkii jifta iska wado dalaqada ma ka doogina haye lacagta meherkan waan ku soo diraa haye sidii gabadha ninkaas ku furi koowaad ayaga sheekaysan ninka militariga haye marka ilaa 7 nin kale kullu igama sheekeenin iyadoo markii waxaan isdhahay xaaladda bay qiirinayso markii sheekeenayso ninkaas ku soo marsiin igama dambeeyay dhadeen nin dib i rafaadin inta kale way guursadeen dib ma imarin laakiin waxa uu maraysaa hal wadayna isa waraacay wayna yarayd wagaas zaid buu yiraahdaa way dhashay hal cuniga u dhadhaaday cuniga ilaa hadda haasta wax kale ma dhaho sax toban kale oo soo guursaday ninka ku sideediyay qadar qoran baa jirta oo aan laga boodi karin wax kastana sabab buu leeyahay sababtu waa magac loo bixiyo laakiin qadarta qoran wixii la qoray sheegay Soomaaliga xataa markan uu yaraay laakiin waxa loo leeyahay fahamkii marka xaalad hada sida ay ku sugan tahay gowrarta way fiican tahay alxamdulillah waxa soo guursaday kalanjin dadkan ka yidego kalanjina guursaday nin mukaanba guursaday Soomaali waa ninkii ugu horeeyay dad badan oo luqado kala duwan basoo guursaday yani dadka Kenyaanki iyada Soomaali ay dad oo aan Soomaali ahayn guursatay gabadha marka luqadaha badan ay garanaysaa rag soo guursay luqadaha xitaa way taqaan Soomaaliga marka waxa maraysaa nin koowaad inuu Soomaali kale soo guursay laakiin oo caadi Soomaaliga xitaa garanayeen ninka Soomaalida banacsiye wax Soomaali ka hadalkaas ay wareysay laakiin kaas waa Kenyan ahay ninkaas Soomaali u wareysay laakiin inta dambo ninkaas Soomaali isku hadli jiray inta ka Soomaali ku hadli jiray
aniga xataa ahaanteeda idinkii ugu sheekeynaysa luuqadda ingiriiska igu sheekeynaysa aniga suwaani kuma hadlaynin waa luuqad kale ma ku hadlayn marka xaalad aad u xanuun badan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo guud ahaanba intaas ayaan kusoo afmeeraynaa sheekadeenii qaybtii 14aad oo maanta uu inooga sheekanayay maxamed cabdiraabi ugaaska tan iyo intaan sheekatan oo kalaha isugu imaan doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo